waxaa maanta magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool gaaray wafdi uu horkacayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Wararkan ka helayno magaalada xarunta gobolka Bakool ayaa waxa ay sheegayaan in shacabka ku nool magaaladaasi ay si weyn u soo dhaweeyeen wafdiga uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo saacado ka hor gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. safarka ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ku weerinayay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo laga soo doorto deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markuu gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool wuxuu halkaasi kulamo oo kula yeeshay waxgaradka iyo dhalinyarada ku nool degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markii dambe loo galbiyay gudaha magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaana halkaasi kulamo la yeeshay maamulka gobolka Bakool iyo kan degmada Xudur waxaana bulshada ku nool magaalada Xudur ay si weyn u soo dhaweeyeen wafdiga horkacayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa ka dalbaday shacabka inay la shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. tagitaanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre magaalada Xudur ayaa waxaa ka horeeyay wafdiga horkacayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo gaaray gelinkii dambe ee shalay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maalintii Sabtida kasoo gudubnay waxa uu si rasmi ah booqasho ugu tagay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana halkaasi uu kula kulmay dhammaan bulshada ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markuu gaaray magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya asiga madaxweynaha koonfur galbeed waxa ay dhagax dhigeen xarumo mashaariic laga fulin doono magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa intuu ku sugnaa magaalada Baydhabo waxa uu xariga ka jiray cirbiyoodi laga hirgeliyo magaalada Baydhabo maadaama mararka qaarkood dadka ku nool magaalada Baydhabo ay ka cabadaan biyo la'aan soo wajahda xilliyada qaar. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu lacag ugu deeqay dhalinyarada kubadda cagta gaar ahaan garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro ee magaalada Baydhabo Cawaale Stadium ee magaalada Baydhabo waxaana ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan isla markaana ay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida ka dhalata deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan uu u baxo safar dhanka cirka ah magaalada Baraawe ee xarunta rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya.